واسعبك هو يدا وحصارا كمال صبر كودا لهذا هذا جسو أنا قد جسم مرتنا أنا وحنا بإنه لما ربنا أولاد الدنيا لبعض إيو أنا قد جسو شكوى عليه إن شاء الله. السلام عليكم. شيخ هبينك سدح ساعتي بر 10 كأسان نورليكو أسرع 10 أنا هبينك تيجي عاو متجينا لكن 10 مقدار ماضو قولي سان فبلسان هاي فأتجينا وحنا وعيشة في فيديو إنه خسارة ولا خسارة فرطان عندها والله بالله يتالله هذا كان عليه هذا كريمة انت عليهم وحيابها عاو أن فرق إسقطورني وريا وحن كبح فيديوهات وحس ليس كبح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكن عبد السلام علي حاشي قف حلقة السلام عليكم عبد الحميد مؤمن ولكن وان مغلي عجلة فيديو وفير سدي runtii aadan ugu xumahay gabadhi hani adiga qabtida ii sheegtay oo naag la qaba ay tahay oo caruur ay ku hayso shan Allah barakeeyo ma sha Allah marka gabadhan wiilkayga oo ii keen waxay ugu soo sheekaysay idan afkeeda ii sheegtay inaan la qabin oo caruurna ay salahay marka oday aabahaada markii la yirin ninka inuu yimid aabaheeda matala aabaheedna yirin aabaheeda ma ha tiri marka arintiina waa haddaan maqlay maanta sharaal isoo gaartay iyo sidaadaba arin waxay u noqotay aad iyo aad oo runtii madax xanuun ah waa ka xumahay aadan ugu xumahay qaladaal galay waana la qalday beenaa la sheegay kulley marka insha Allah waa arintan waa hagaagaysaa waa ka raali Allah waxa waaye qaladaal dhacay meesha qalka meesha ku socdana kulley waa fahmi kartaa kan markii gabadha isku hursanay 4 bilood ka hor ayay ahayd maal meherkiisa iyo gabadha meherka si wuxuu ku dhacay oo si public ah ayuu ku dhacay si qarsooni xataa muusan ku dhicin meherkeeda sababta marka uu ku ogaa waayay ninka gabadhan qabay Cabdisalaam lagu magacaabayo sababta uu ku ogaa waayay maxay tahay 6 saac oo cad oo la mehersanayo sababta uu ku ogaa waayay maxay tahay ani midaas ayaa garawaayay markuu hadartan dib ka soo baraarugayo oo hadda dhahayo gabadhan anaaba qabo caruur iyo dhashay markuu dhahayo hadan markii intaas ay ka soo safreysay ee ninkan turku ugu imaanaysay sabab oo ku fahmi waay maxay tahay ani taasa ilaa hadda la yaabaraha oo arintaas xaqiiqo ay tahay dad hadan sheegayo oo yaqaano oo Sweden la joogo oo hadana maanta arintaas in ay runta sheegay ayaan arkay dadkaas waxa kamid ah محمد بسكوت وحاكميد ويلكا لكوسو قلاكه ميديا برو سيدا او تقانين عمران ويلك لبداس ويل وهي لجوغان سويدن اي لجوغان gabadhan waxay siqaasa ayaan u raqaana wiilka qabana wiliba siqaasa ayaan u raqaana caruurta shantas caruur in ay dhashay taas shaki kuma jirto shantas caruurna way dhashay walaya midda hadana aan isweydiiyay hadana waxay tahay gabadhan ayaga miyaa qiyaano wadato sabab ayadoo nin qabo haddana ay nin kale u guursatay maxay tahay meeshaas aan koleeto meeshaas ani waxbaa aan ka fahmay gabadhan waxaa laga yaabaa in ay adiga meeshaas in wax ugu duulan yihiin ay ila tahay aniga maanta meesha in wax ugu duulan haddana waxaa lagu leeyahay horta social media markii ay muuqaalada ay kamaal ay la sameynayso ay kaamirada ay kasoo muuqato wajigeeda lama arko waa wajigeeda inta badan uu u xiran yahay maray maaska santahay maray sharar gashan tahay waaye haddana dadka inta ugu badan waxay leeyihiin kommentayaasha dadka soo firciliyay waxay leeyihiin gabadhan waxay isla qarinaysay wajigeeda u qarinaysa ayaa waxay tahay dadka yaqaano sidaysan adowti u aqoonsanin naagtii la qabay in ay tahay والله أريد إيجا يا بسي أيام تسي والله واجب أريد ميل أورع وجرواي والله أنا حاسة أنت وحبك فرق الدوام بعد كنت أنا اسمك قرينا يسوع من أريد إنسان هذا كوسي صعد وحي الناس أسكت جرو وما أركينه إن لكر قرينا هنا وبنانك أي إيمانه يعني تاس أيام بس قرينين حقيقة من ولا وادونا لكن أريد هذا الناس يكون حيران أو حكي عن أريد إن الناس يكون حيران waxaan hadii ay runtahay ee gabadhan qabo ay runtahay waxa fiican in arintan hoos loo dhameeyo band waayo dan kasta sharaf dhac ayaa kaaga imaanay ma fiicna marka waxaan leeyahay arintan tartiib oo degan halo xaliyo social media in la keeno ma baahan laakiin hadda social media
way ku bilaabatay bilaab ay sheekada taagan tahay laakiin haddii sheekadana sii wadwado ilaa dhammaad ayay imaanaysaa social mediana afarteeda koona ayay ka qabsanaysaa marka xasbunallah wallaahi waa arrin naxtin leh oo maxarkanoo la yaab leh anu waa yaabay maxaa kamaalow hooyada maxaa lahaa hooyadii waaye gabar naagtana la joogtid anaana uweyn markaas waxay dhahay marka videoyasha waxaan hooyada ka duubta meesha ma ka bixi kartaa maadaama hooyaday naag la qabo iyo ciyaal ay leedahay inta ceebtan ugu badanin marka muxuu isoo qoray maxaa lahaa ani qofka anaa qabo anaa aqaano beentani iga jooji beena sheegaysa maxaa dhaha been ma sheegaye qof oo kusoo wici karto meeqa qofa kuusoo qorto ku dhahday naagta waa naqaanaa ciyaala leedahay marka waxay dhahay maxaa lahaa qofka kusoo diray aabaha kusoo diray waa ogahay hanina ma ku dhalin marka xadhaa hani way dhashay adina wax ma ku ogid hadda qofaa barato waayo hooyadeyna way tahay hooyada markay tahayna anaa og hooyadeyna tahay maxaa lahaa bafiisyaal badanna waa hayaa marka waa blokeeyey miga telefoon markaas miga qabana block u saaray balaayadan iyo waxaan kale ordaa waa arkay laakiin ma jecel inaan mar walba macnaha xaaskayga waa maradayda oo kale waa ilmahayga hooyadood waa wax walba hadday meesha ka dhacaan mar jecel inaan ku degdega ma jecel cabdisalaan ahaan intii taqaana xaafadana deganay magaalada deganahana macnaha dadka jooga waa la weydii karaa may waa ku ogahay inaad ahayd anigu markii igu kaa dambeysay iyadood aad iyo aad qof ka ciyaal jeclaa waa yaryahay dunida si ciyaalkeedu jecleed maantana waxay mare ciyaal ma dhalin inay dhahdo ma oga macnaha inay dhahayso hooyadeed aa soo wacday taleefonkaan ma aqaanay tiri waa hooyadeed ayada dhashay marka qofkan ficilada oo sameehayo marka aragnay waxaa noo caddaatay qofkan qof sixran oo wax oo sameehayo inaysa ogeyn ah muuqaal hooyadeeda inkire tan iyo gabadhaas maskiinta lagu dheelayay iyo waxaan beenta iyo caasinimada dadka waalidkiisa uu dhageysan waayey iyo wax walba qof walba runta u sheega oo u dhibsahayo usa dhageysahayn horta gabadhaan ehelay leedahay daday leedahay waa layskala xisaabtama xaqiiqa waa taas laysku daymayo waa wax lagu wada xisaabtami doono ama maanta aata ama berri aata saameynta ay yeelatana asagaa mas-uul ka noqohay ninka mas-uul ka noqoha asaga ma fahan waa garta salaamullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu asxaabta sharafta leh waa mar kale iyo muuqaal cusub bartan aada iga dheeganaysaanna waa la kahmiliye baro aada iyo aad ayaad u mahadsantihiin kusoo dhawaada magaalada yaafle xaafadda andashbari si gaar ah haddaan sii tilmaamo waa findirooge waa bartii aan deganaa oo ku noolaan jiray waayana ku qaatay aniga iyo ugaaska iyo rag badan iyo dad badan oo asxaabta ka midi way wada garanayaan reer yaafle si guud baan u salaamaya waxaa dhinacayga fadhiya waa cabdisalaan inaan ka hor dhaco ma doonayo isagaa inoo sharxi doona laakiin barnaamijkan ka hadlayna ayaan rabaa inaan idiin tilmaamo marka hore waa barnaamijkii kamaal cabdul iyo barnaamijkiisii waxaanu joognaa gurigii reerka waxaanuna soo booqanay reerkii oo kaamil ah caruurtii waa kuwan dhinacayga fadhiya cidima maqna laakiin waxaa inoo hadli doona insha allahu tacaala cabdisalaan bal cabdisalaan soo dhawow marka hore magacaaga dadka u sheeg bismi illahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdisalaan cali xaashi waa gartay waxaan rabnaa bal barnaamijkii dhacay oo ninkan kamaal cabdul gabar baa muuqaal kula jirta aabihiis baa soo hadlay hooyadiisaa hadashay gabadhaada najmo ayuu la hadlay adiga waa wada hadasheen odayga sababta ku kaliftay inuu muuqaal soo duubo waxaasoo dhan bal barnaamijka noo dhexgal oo noo sheekay anoon kaa dhexgelin oo kaa gogoynin waa mahadsantaha cimraan akhyaarta dhan waa wada salaamaya dhammaantood magacaygu waa cabdisalaan waxaan ahay hani muumin maxamed ninkeeda hani muumin maxamed waxaan isqabnay muddo 25 sano ah waa gartay waxaan isku dhalnay 8 caruur ah 3 waa dhimatay laakiin 5 aan nool hadda maasha allah
الحمد لله. waa gartay